رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، كسو دواذا الشيخ ريمي channel. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل مرادي ومراد المسلمين باب النار. عنوان كان ما أنت وحقوي هي الحسد. ولا لي الحسدك كون كان أنجوكنه وامتك أو خطرسن. حسدك ولا لي الوا وحك لجيا لبض قفوت إسجعل. حسدك وا فاميليغا أيو بابئيها. حسدك وا ganacsiga ayuu tirtiraa. xasadku waa nimco kastoo ilaahay ku siiyey ayuu kaa tirtiraa. awlaadda ayuu kugu diraa. awlaadda ayuu kaa kala kiciyaa. jiiraanka ayuu kugu diraa. xasadku wax fiican ma aha walaalayaal. xasadku waxa uu ka daran yahay sixirka. maxaa yeelay sixirku waxna waa uu baabi'iyaa, waxna waa uu daayaa. balse xasadka wax uu daaya haba yaraatee ma jirto oo dukum daakum ayuu kaa dhigaa. haddaba maanta waxaan kuu soo gudbinayaa walaalayaal 7 calaamadood aad ku garan kartid qofka hortaada jooga, aad ku garan kartid inuu yahay qofku xasdaaya, isla markaasna sida aad uga gaashaaman lahayd ayaan kuu soo gudbinayaa. waa video aad iyo aad muhiimadiisa u wato walaalayaal. waxaan ku dhahay 7 calaamadood aad ku garan kartid qofka hortaada jooga oo يعني inuu ku xasdaay in kale aad ku garan kartid, isla markaasna sidaad isaga gaashaaman lahayd amaba isaga difaaci lahayd ayaan kuu soo gudbinayaa. waa video muhiim ah, la soco video ila dhamaadkiisa. fadlan haddii aad ka hesho like sidii roobka ah inooga yeel, subscribe-na soo dhaha noogu soo biira oo dhiirgelin ayay inoo noqonaysaa. gambeelkana furta si ay idin soo gaaraan wax kasta oo cusub aan soo wadno insha Allah biidnillaahi alkariim. dadka wax xasda waa ay kala yihiin. ishooda ama xasadkooda waa uu kala daran yahay. waxa ugu daran dadka kula nool, ku dhow, is aragtaan, wax kala cabtaan, wax isku darsataan, gaari isla raacdaan, isla lugaysaan, xaaladaada gun og kaas ayaana ugu daran xasidnimadiisa. imaa qofka kaleente ishaqada bishiiba laga yaabo inuu mar uun ku arko, ama isbuucii mar uun ku arko, ama maalinkan dhan inuusan ku arkin laga yaabo. kaasi ishiisa waxa ay ka daran tahay qofka aad kuugu dhow, ama jiraan ha ahaado, ama qaraabadaada ha ahaado, ama ehla kula ahaado, ama garanaysaa xidid ahaada. waxaa laga yaabaa inaad isdhahdaan Sheekh Riimi maanta qaraabada miyuu idinka goynayaa? maya, wixii jiro un baan kuu sheegayaa. soo ma ogid qofku kuugu dhow inuu ku xasdi karo, xitaa hooyo inay xasdi karto awlaaddeeda soo ma ogid, aabba inuu xasdi karo awlaaddiisa soo ma ogid. laakiin xasadkiina adigi iyo odaygaada ilmihiin aad xasdaysaan iyo xasadkan oo dad kale idin xasdayaan isku mid ma aha, isku qiimana ma aha, marnaba ma noqon karaan isku qiimo. maxaa yeelay kuwani jamasho iyo jacayl ayaa laga yaabaa in ay magaranaysaay ay isha kaaga dhacdo, laakiin kuwa kale xasidnimo iyo xiqdi iyo cuqdad ay qabaan dartooda ayay magaranaysaay ku xasdayaan. haddaba saan hore kuu soo sheegay, qofka ku gun og ayaa xasadkiisu ama uu ku xasdi karaa, ama xasadnimadiisu ay aadka ay u daran tahay insha Allah biidnillaahi alkariim. yaan warka idinku dheeraynayna. qodobka koowaad ama calaamadda koowaad aad ku ogaan kartid waxa weeyaan qofka hortaada taagan inuu ku xasdayo waxa uu kaa badinayaa su'aal ayuu kaa badinayaa. waxaad aad haysato, nimcad aad haysato sidaad ku heshay ayuu ku weydiinayaa, ayuu kaa wareysanayaa, isagoo weliba ihtimaam weyn saarayo. yani muhiimadda diradda ayuu saarayaa qaabkaad ku heshay, sidaad ahayd iyo sidaad ku heshay, markaad noqotay waxaad dareemaysid ayuu ku wareysanayaa. qofkaas oo bar kasta kula jiro, nimcada aad haysato waxay rabtaa ha kuu ahaatee caqli, cilmi, awood iyo magaranaysaa maal iyo awlaad iyo intaba, waxaad dareemaysaa qofkaasi in xaggiisa xasad uu ka socdo. qaabkaad ku heshay keli inuu ku weydiinayo maad u malaynaysaa, inuu saas kaga kaaftoomay maad u malaynaysaa? may, waxa kaluu ku weydiinayaa khasaaradaadana wuu ku weydiinayaa. مثلا ganacsado ayaa tahay,
إيشك أديك فائدة هذا قابك أهشن وكويدينايا خسارة هذا وكويدينايا ولي بوحو تارجت سارايا مركات خسارة أتوشيكتو وأكو راحي سنايا وأكو معان سنايا وأكو قصلايا وحو ربا مركز إنو كويديو أدنا أد أو علسو أيو ربونايا قلب كلاباتنا أما علامة لاباتنا وحي نقونيسا مثلا هدي أو كلا فديو قف كاسي رك هذا أما دمر هذا إن وركاga amaantaada ayuu maqlaaya ama wax adiga dan ku ah ayuu maqlaaya isla markii yaani naxdin ama ma garanaysaa waji cabuusnimo oo uusan control karin qofkaasi ayaa markiiba qabsanaysa tusaale ahaan adiga oo kula fadhiya isaga ama iyada ayaa qofku amaanayo aabi khayrka tahay lagu leeyahay ama garanaysa adiga waa lagu amaanaya markaasuu soo boodaya wuxuu leeyahay kana muxuu aabi khayrka uu ka yahay isma oga isaga markaasi qofkaas waa uu ku xasdaaya tusaale ahaan wanaaggaada ayaa la sheegaya wanaaggaada marka la sheego isla markii xumaata ayuu ku soo daraya isagoo uusan ugu talagelin iraadadiisana kama soo go'ayso laakiinse Soomaalida waxay dhahdaa uur wixii ku jiro ayaa afka soo dafa ayaa la dhahaa marka isaga iskama warhaayabo xasidkii ayaa ka adkaanayo oo banaanka ayuu u soo tufaya wanaaggaada la sheegaya xumahaada ayuu sheegaya tusaale ahaan haddii aad isku badan tihiin oo kale haddii wax laga weydiiyo warniyo saaxiibkaaga ama saaxiibtaada mar dhow maba arkine ii sheeg adiga lambarkeeda ma hayuu ku leeyahay weliba qofkaasi wuu buufaya isagoo si xun uu ugu jawaabayo waxaa ka mid ah waxyaabahaas oo kale ama waxaa ka mid ah مثلا tusaale ahaan adiga oo telefoon ku hadlaysid ayaa waxaa lagu sheegay ganacsada ayaa tahay inaad faa'iido heshay ayaa lagu sheegaya markaas uu soo boodin dhuhu gadinaya wax ma heshay intaas dhan ma heshaa muddo gaaban ma intaas dhan ku heshaa masha Allah ma dhahayo alxamdulillah ma dhahayo waaba naxayaabo waxaad moodaa in madaraq ama ma garanaysaa garweyn dhabarka loogu dhuftay ayaad moodaa haddana waxaan ku soo gudbinayaa calaamadda saddexaad markasta qofkaasi axadkaasi wuxuu jecel yahay inuu ku soo waco inuu ku arko inuu kula fariisto mana ogo inuu shalay ku weydiiyay hadduu ku weydiinaya wixii shalay uu ku su'aalay ayuu haddana ku su'aalaya telefoon ayuu ka soo wacaya markuu kula hadlaayo hindhahaaga wajigaaga hindhihiisa kama leexinayo haddii aad aragto calaamadaasi oo markasta uu ku soo wacayo ku balaminayo kula fariisanayo wajiga kugu qabanayo qofkaasi waa xasuud weeyaan oo yaani xaasid weeyaan oo rabo inuu ku xasdo isheeg adiga digtoonaantaada ka qab insha Allah qodobka afraadna wuxuu noqon karaa مثلا qofkaasi hadduu ku yimaado gurigaagana uu yimaado rag ha ahaado ama dumar ha ahaado gurigaaga isla markii uu ku yimaado ama ay ku timaado gurigaaga oo dhan waa isgadinaya haddii adiga caadi aad ahayd waad isgadinaysaa caro ayaa kugu dhacayso ilmahaaga haday caadi ayaad u ahayd isla markii qofkaas uu yimaado ilmihi waad ku kacaysaa xaaskaaga caadi ayaad u ahayd waad ku kacaysaa ninkaaga caadi ayuu ku ahaa waad ku kacaysaa yacni xaaladaada habbi ayaad ahayd isla markii uu qofkaasi ku yimaado waxaad dareemaysaa ciriiri caburin iyo stufa noqonaysaa nervous ayaad noqonaysaa calaamad shaqad waxay noqon kartaa qofka ku xasday waxaad ku garan kartaa مثلا adigoo kula fadhiyo ayaad waxaad ka dareemaysaa xarakaad oo uusan kaskiisa ku sameynaynin oo yaani uusan ula qasdinayn ayaan ula jeedaa oo iraadadiisa aysan ahayn war farxad leh hadduu ka maqlo madaxuu xoqanaya amaba naqas ayaa ka soo go'ayo ayuu leeyahay ama ay leedahay amaba waa uu hamaansanaya hamaansi ayaa qabanayo amaba hindhihiisa ayaa markiiba amaba hindhaha ayaa gadgadoomayo amaba garanaysaa afka ayuu qaloocinaya amaba carabka ayuu soo saaraya amaba ishak adiga isla markiiba meel uusan filayn ayuu u jeesanaya مثلا adigoo quruxsan dhar qatar wata ayuu ku arkaya caynkaasi ayuu sameynaya marba haddii aad aragto isagoo calaamadahaas amaba tilmaamahaas ama xarakaadkaasi iraadadiisa ahayn qofkaas sameynayo waxaad ogaanaysaa in uu yahay xaasid ma garanaysaa oo ku xasdayo tusaale ahaan mashruuc ayaad helaysaa
waxaad leedahay adigana waad la tashanaysaa waxaad leedahay iyo mashruucaasaan helay intaasaan magaranaysa lagu maalgelinaya intaasaan faa'iido la helaya markaad dhahdo wuxuu ku leeyahay yani beel waa okay waay ayuu ku leeyahay ama madaxuu xoqanaya saan kuu sheegay ama waa uu ka naxaya daa faa'iido aad hesho ama wanaag haddii aad la kulanto haddii aad u sheekato aad la tashato calaamadahaas ayuu magaranaysaay ka soo muuqanayso calaamada lixaadna waxay tahay waxay noqonaysaa xam badan iyo caay badan ayaa ka soo muuqanayso tusaale ahaan qof liidan jiray haddii oo wanaag aad uga sheekaysid qof kale waaye fiiriya adiga isaga isla fadhisaan ama adiga iyada ayaa isla fadhisaan qof waxaad uga sheekaynaysaa qof liidan jiray oo hadeertaan soo kabsaday ama magaranaysaa soo wanaagsanaaday ama wuu xanuunsanaan jirtay ama wuu xanuunsanaan jiray hadda wuu soo caafimaaday markaas qofkaas camal aad uga sheekayso waa uu xamanayaa agtaada ayuuna ku caynayaa tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inaad tusaalaha wax ku fahamtaan gabar ayaa xanuunsan jirtay aad ayay u xanuunsatay ilaahay ayaa faraj u furay wuu caafiyey waxaad uga sheekaynaysaa gabadhii inay caafimaadday gabadhii heblaaye ahayd ilaahay xanuunkii waa ka qaaday waa kiciyey alxamdulillahi rabbi alcaalamiin markaad dhahdo taasaa yacni awalba haddayba xanuunsanaysaaba awalba zaaniyaday aheede caafimaadkeeda muxuu u tarayaa awalba saaxiraday aheede sanwa yacni waxaan loo joogin iyo cay aan loo joogin iyo xan aan loo joogin ayuu agtaada ku samaynayaa ogow qofkaasi markii uu kaa maqan yahay gabar kaleente ama qof kaleente wanaagaada uga sheekaynayso waa saas ayuu ku caynayaa waana uu ku xamanayaa waxaad ahaan jirtay ayuu sheegayaa amaba ay sheegaysaa haddaba saas u ogow calaamadda lixaad waxaa weeyaan waa cay badan yahay ama way cay badan tahay ama waa xam badan yahay ama way xam badan tahay haddii adiga ay kaa maqan tahayna sidaas ayay ku caysaa ay ku xamataa amaba sidaas ayuu ku cayaa uuna ku xantaa calaamad toddobaad ee ugu dambaysa waxa weeye qofkaasi kuma ogola khayrka maalan adinka haddii uu maqlo wax kale ayuu isku dayayaa inuu kugu mashquuliyo xilliga salaada baab kale ayuu kuu furayaa shaydaankii weynaa ayuu kugu noqonayaa tusaale ahaan khayrka kuuma wadaayo isheeg adiga wuu ka hor istaagayaa waxa uu diidayaa nimcooyinkan ilaahay uu ku siiyey inaad ugu shukriso allah ayuu diidayaa adinka in la aamuso waaye salaada shanta in waqtigooda lagu tukado waaye qur'aan in la akhristo waaye qur'aanka in akhrisid wuu kaa diidayaa wuu kaa mamnuucayaa wuxuu ku leeyahay wuu ku boojaynaya haddaa kitaab haysatid uu kuu yimaado ama ay kuu timaado way ku boojaynaysaa adigoo salli ku fadhiso ilaahay baryaayo waa ku mashquulinaya wuxuu ku diidan yahay nimcadan ilaahay ku siiyey inaad ku shukrinaysid uu haddana ilaahay uu kuu ziyaadiyo la in shakartum la aziidannakum ayaa ku ghafilan ilan waa xaside isagan ilaahay kuma shukrinayo oo ma dhaha ilaahow isii laakiin wuxuu ku dadaalayaa sida ilaahay uu nimcadan uu kaaga qaadi lahaa oo ka bacdi isaga ilaahay uu wareejin lahaa ayuu magaranaysaa ku dadaalayaa ma yaqaano alxamdulilah ma yaqaano wanaag ma taqaano isheeg adiga samo laakiin adigii samaynayay waxaasi ayay isku dayaysaa ama isku dayaya in uu ka hor istaago ciyaadan billaahi haddaad calaamadaas aad aragto qofkaas mar kasta xumalay kuu jiidaayo hees dhegayso meel intaa aadayna ku mashquulinaya xilliga salaada ama xilliga qur'aanka ama xilliga adinka haddii aad aragto ama yani xilliga weysada uu ku mashquulinayo qofkaasi waa xaasid weeyaan haddaba ballanteena waxay ahayd waxaan idin dhahay sideen dhufays aan ugu galnaa ugu gaashaamana inaan idin soo gudbinayo haddaba waxaa laga yaabaa inaad ileedahay sheekhow waxaad naga ballan qaaday inaad aan noo sheegtid saan isaga gaashaamano aan dhufayskaan ugu galno haddaba waa sidee dhegtaada fur gaashaanka ayaan kuu soo gudbinayaa haddaba isla markii calaamadaha aad la kulanto waxaa kuu bannaan 3 waddo ayaa kuu bannaan waddada koowaad ma dhehaysid maasha allah ma dhehaysid waayo wuxuu ku arkayaa inaad magaranaysaa sirtiisa aad fahantay waad ka naxinaysaa waa marka islama socon kartaan laakiin waxaa la rabaa adigoo qofkaasi wadaayo nimcadii ilaahay ku siiyeyna kuu soconayso ayaa la rabaa waxaad leedahay markii aad la kulanto calaamadahaas maasha allah
لا حول ولا قوة إلا بالله. وحير أد مقلسينيسا ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أصدق وحيس هوته أديك ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا دلدليسا. قضب كود وقضب كاس مثل بعض أياجرتو إسلام مركي أدرينتو على مدهاسي وحات أخرينيسا قل أعوذ برب الفلق سدح مرة أخرينيسا. أما با أنت استجابة على مدهاس أو وضع أما أي على مدهاس أي وضع أي دلدليسو أدنى برب الفلق دلدل دفاع أي كاغا نقونيسا. قضب سدحادنا وحويان آية الكرس أعظم الآية في القرآن أيد أدنى أود وقبانيسا سدح ذبوا تقانا ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله إيو سورة برب الفلق إيو آية الكرسي انت اسمها كنوغيسا ومايا هدي تضوع على ما أدركته دودي ذوا سدح ذان إن شاء الله وفكاسي وحبا إشيسا أما بحسد نمديسا وحبا كوما لميسو إلهي نواكا قول سينايا وادنا كقاشامتي والله سبحانه وتعالى أعلم انت أصلا سوق بقبينايا وحان هلينا في الشيطان الله نقدافو وحان هقاجي فمن الله نقا أجر سيو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.